wuxuu ahaa dagaalyahan geesi ah, sidoo kale waxa uu ahaa dhakhtar ay ku dhaadato dowladda Cuthmaaniyiintu. waxaa lagu naanaysi jiray aabbihii qalinka sababtoo ah waxa uu ahaa nin aad u cilmi badan. waxa uu ahaa mid ixtiraam badan, ixtiraam aadan u haya walaalkiisa ka weyn ee lagu magacaabayo Orhan Albi. ninkaan ka hadlayno waa geesigii wiilkii labaad ee mudane Cuthmaan, Suldaan Calaa ad-Diin. soo dhawaada wadayaal, taariikh kooban aan kaga sheekaynayno Suldaan Calaa ad-Diin oo ahaa aabbihii cilmiga ee dowladda Cuthmaaniyiinta. taliyihii horeeyay la dowladda Cuthmaaniyiinta kaasi lagu magacaabi jiray Suldaan Calaa ad-Diin ibn Cuthmaan ibn Artaqr ibn Suleymaan Shaah Calaa ad-Diin Baasha. waxa uu ku dhashay magaalada Zuhud sanadda markay ahayd 1281 taariikhdii miilaadiga. waxa uuna ku dhintay magaalada Bursa oo ahayd magaaladii u horeysay uu furtay walaalkiis Orhan Bey sanadda markay ahayd 1331 taariikhda miilaadiga. waxa uuna xilligaasi jiray 50 sano. hooyadii waxa la dhihi jiray Rabiica Baala Khaatuum, waxaana dhalay Sheekh Dabaali oo ahaa sheekh aad u weyn, kaasi oo ahaa sheekhi mudane Cuthmaan oo cilmiga iyo tarbiyadaba ka soo qaatay. Baala Khaatuum ayaa mar walba waxay dhihi jirtay Calaa ad-Diin waa jawaabta ducadeedii, maadaama Baala Khaatuum kadib markii mudane Cuthmaan uu guursaday dagaal la gashay Mongoolka dhaawac uu ka soo gaaray, kaasi oo dambeyntii la yiraahday ma awoodta adiga inaad u qaadid. balse laakiin Baala Khaatuum oo markaasi aan ka quusanin baryada Ilaahay ayaa u dambeyn Ilaahay waxa ku arsaaqay wiilkan la yiraahdo Calaa ad-Diin Bey. sidaa darteed waxay u bixisay jawaabta ducadeedii. waxaa la sheegaa haddaba Orhan Albi iyo mudane Calaa ad-Diin in markaasi mudane Calaa ad-Diin uu ka weynaa. sababta loo aaneynayna waxay tahay in mudane Cuthmaan markii u horeysay uu guursaday Baala Khaatuum, sidaa darteedna uu yahay markaasi curadka mudane Cuthmaan. arrin kaleeto oo jirta waxay tahay in markaasi taariikhyahanada qaarkood ay yiraahdaan waxaa ka weyn Orhan Albi. sababtay u aaneeyana ay tahay in mudane Cuthmaan markii Baala Khaatuum ay u dhali weyday in mudane Artaqr oo ahaa aabbaha mudane Cuthmaan uu ku yiraahday adiga waxaad u baahan tahay qof ku dhaxla mustaqbalka maadaama aad tahay hoggaanka dowladda. sidaa daraaddeedna u guursaday gabar la dhahaye Malkhuum Khaatuum, taasi u dhashay wiilka Orhana. waana sababta la yiraahdo Orhan ayaa ka weynaa Calaa ad-Diin. isku soo wada duuba haddaba waxay u badan tahay in markaasi Orhan Albi weynaa maadaama markaasi kursiga uu la wareegay oo isagu dhaxal sugaa u ahaa. sababta taa loo aaneynaya ay tahay in markaasi dadyoogii horete badanaa kursiga markaasi uu ku fadhiisan jiray wiilka culudka ahaa. si kastaba ha ahaatee Calaa ad-Diin wuxuu ahaa mid ixtiraam iyo jacayl badan u haya walaalkiisa ka weyn, si kastoo ay u kala fikir duwanaadaan, maadaama mudane Orhan uu ahaa dagaalyahan adag oo markaasi markasta jecel in wax walba uu ku xalliyo seef, halka Calaa ad-Diin oo ahaa nin naxariis badan maadaama dhakhtar uu yahay, saynisyahan uu yahay, caalim uu yahay. Calaa ad-Diin waxa uu ahaa mid badanaa ku sugnaada gudaha oo markaasi xalliya dhibaatooyinka gudaha, halka ninka la yiraahdo Orhan Albina uu seefta u qaatay si uu ballaarin lahaa dowladda Cuthmaaniyiinta. haddaba sanadii 1328 ilaa 1329 iibsigii mudane Orhan uu iibsaday qalcadda Izmit ama magaalada Izmit ayaa mudane Calaa ad-Diin u yimaaday isagoo markaas u wada 3 arrimood ama 3 talo oo muhiim ah. midda koowaad waxay ahayd in markaasi lacagta lagu qoro magaca Orhan Albi, in ciidamada loo sameeyo dhar iyaga u gaar ah, sidoo kaleete in ciidamada jaga loo kala sameeyo oo la kala sarsaraysiiyo, tusaale ahaan dable, gaashaanle iyo janar adi insaa loo kala sarraysiiyo. Orhan Albina arrintaas aad ayuu ula dhacay, waxaana la sheegaa in markaasi lacagta lagu qoray magaca Orhan iyadoo markaasi ducana la raaciyay, taasi oo u qorayd ilaahay ha raajiyo madaxa dowladda Cuthmaaniyiinta. daawad haddaba mudane Calaa ad-Diin waxaa la sheegay inuu guursaday gabar la dhahaye Goonja, gabadhaasoo iyaduna ahayd gabadh aad u caqli badan oo una dhalay mudane ka mid ah mudanayaashii Turkida kaasoo lagu magacaabi jiray Yacquub. waxa uu isna sidoo kale mudane ka ahaa qabiil aad iyo aad u baaxad weyn kaasoo lagu magacaabi jiray Garmiyaan. waxay ahaayeen qabiilada ugu faca weyn, sidoo kaleete ugu dagaalyahansan, sidoo kaleete ugu ballaaran ee markaasi xilligaasi, iyadoo in badan markaasi mudane Cuthmaan xitaa dagaal iskula hor yimaadeen qabaa'ilkan, iyaga oo doonaya markaas maadaama ay ka tira badan yihiin iyo ciidanba badan yihiin in markaasi iyagu ay noqdaan dowladda Salaajiqada kuwii dhexli lahaa ama Turkida. markaasi uu doonaya odayga la yiraahdo Yacquub in isagu uu noqdo mudane Cuthmaan meesha uu ka saaro. mudane Calaa ad-Diin waxaa sidoo kale la sheegaa in gabadh kaleeto uu guursaday, balse isku soo wada duuba ciyaalkiisa ayaa waxay ahaayeen 5 wiil iyo 3 gabdhood. magacadoodana waxay kala ahaayeen Kilik Bey,
Haziir Bey, Maxamed Bey, Ibraahim iyo Sahiil. waa 5 wiil ah. 3 gabdhoodna magacyadoodu waxay kala ahaayeen Basa Hatum, Ayse Hatum iyo Taki Hatum. waxaa jirtay qiso aad u xanuun badan oo markaas yaraantiisii qabsatay, taasi oo ahayd in isaga iyo walaalkii oo markaasi tababaranaya dhaawac u geystay, kaasi oo sababay in Orhan markaasi gacanta uu ka noqdo paralysis ama ay shaqayn weydo in muddo ah. sababta ka dambeysana ay ahayd gabar jaajuusada oo markaasi ku dhex jirtay qabiilka Kai ayaa ka hor inta markaasi goobta tababarka ayna tagin Calaa'ad-Diin iyo Orhan waxa ay sun sii marisay seeftii Calaa'ad-Diin. suntaasi oo markaasi qofka markii ay soo sartaba ku sababaysay in meesha ay ka sartay markaasi paralysis uu ka noqdo oo ay shaqayn weyso. ugu dambayna Calaa'ad-Diin iyo Orhan markii ay tageen goobtii tababarka ayaa waxaa sahlanaatay in si dhib yar mudan Calaa'ad-Diin ugu sarseef walaalkiis Orhan, maadaama mar walba ay ahaayeen kuwa tababarta. dhaawacii hadda markaa ka soo gaaray ayaa waxa Orhan uu gaarsiiyey dhibaato fara badan, kaasi oo in muddo ah markaasi gacantii ka ahaada paralysis ilaa uu ka yimaaday hogaamiye Mongool ah, kaasi oo aad u arxan darnaa, baaba fara badan ka geystay qabiilka Kai. balse midkana waxa uu noqday sababta ka dambeysay badbaadada Orhan. waxaa lagu magacaabi jiray Commander Neyman, waxa uuna sabab noqday badbaadada ninka la yiraahdo Orhan. Orhanna sidaas ay gacantiisii markaas shaqaynteedii dib ay ugu soo laabatay. Calaa'ad-Diin wuxuu yaraantiisiiba xooga saaray cilmiga dhakhtarnimada, isagoo oo markaasi ka buuxsaday nin lagu magacaabi jiray Kumral Cabdalla. Kumral Cabdalla oo ah nin awliye ah, sidoo kale dhakhtar ah, dhanka cibaadadan aad ugu jaban. yaraantiisiiba Calaa'ad-Diin waxa uu noqday mid markaasi cilmi walba oo ninka Kumral Cabdalla la yiraahdo uu yaqaano oo ah dhanka daaweynta in markaasi isagoo yarba uu ka buuxsado. Kumral Cabdallana waxa uu ahaa mid u hagar baxa oo waxba markaasi isaga u sheega. sidoo kale Calaa'ad-Diin cilmiga waxa uu ka soo qaatay awowgii Sheekh Dabaali, kaasi oo ahaa nin aad u cilmi badan. sababta markaasi loo sheego in Calaa'ad-Diin uu ugu fadhiisan waayo kursiga ayaa waxay tahay in walaalkii uu ku yiraahday adigoo nool ayuu aabba kugu aaminay kursiga, kuna magacaabay inaad ciidanka markaasi madax u noqotid, haddana adiga ayaa u leh xaq kursiga inaad ku fadhiisatid. Calaa'ad-Diin ma ahayn nin adduunyo jecel, waxa uu ahaa nin markasta jecel in xoogga uu saaro faafinta diinta Islaamka. intiisa ugu badan ama dhismayaasha ugu badan uu sameeyay waxay ahaayeen masaajido, kuwaasi oo xitaa xilligii uu dhintay markaasi dhismayaashiisu ay sii socdeen. tusaale, masaajid laga dhisay magaalada Bursa oo markaasi la dhameeyay sanadii 1335. ugu daawad Calaa'ad-Diin waxa uu dhintay sanadii 1331. masaajidkaasi oo ahaa masaajid aad iyo aad u baaxad weyn. isku soo wada duuba mudan Calaa'ad-Diin ayaa waxa uu ahaa nin geesi ah, sidoo kale aad u naxariis badanaana waxa uu markaasi ahaa nin ku xalliya dhibaatooyinka seef la'aan, isagoo adeegsanaya maskaxdiisa iyo sidoo kale cilmiga Ilaahay ku manaystay. halka Orhan uu ahaa askari adag oo wax walba seef ku xalliya. balse laakiin ma ahayn Calaa'ad-Diin nin ka geesisan seeftana kaga fiican, Calaa'ad-Diin waxa uu ahaa nin naxariis badan. isku soo duubo sheekada Calaa'ad-Diin ayaana laga qorin buugaag fara badan, iyagoo markaasi taariikhyahanada xoog ay saaraan nimanka markaasi dhaxla suldaamada. balse Calaa'ad-Diin sheekadiisu way ka duwantay kuwaas oo kaleete, intana kuma soo koobi karayno, balse muuqaalkeena maanta halkeen ku soo gabagabeynaa. haddii aad jeceshahay markaasi inaad sii wadno taariikhaha noocan oo kaleeta ah, qaybta kumantiga ku soo qor halyeega magiciga aad jeclaan lahayd in muuqaal ku xigaan soo qaadano. aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada. muuqaalka waxaan jeclahay laakiin aad saartay channelka hadduu kugu cusub yahayna subscribe aad dhahday.